qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab gaar ahaan kuwoodii qortay dib u noqoshada Soomaaliya isla markaana si iskooda u go'aansaday inay dib ugu laabtaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxay ka codsadeen hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ahna hay'adda u qaadaysa Soomaaliya in dib u noqoshadooda ay dedejiso qaarkood dadkan ayaa waxay sheegeen in muddo 2 bilood ka hor ay isdiiwaan galeen ilaa xilligaasina ay sugayaan in dib loogu celiyo Soomaaliya qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay TV-ga qaranka Soomaaliyeed xilli aroor hora oo ay hortumnaayeen mid ka mid ah xafiisyada hay'adda UNHCR ay ku leedahay xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay uga warameen amuurtan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maxamed waxaan diiwaan gelinta galay 26 bishii 7 caafimaadkan waxaan soo maray khamiistii dhaweyd hadda aan soo dhaafnay maantana 4 la joogaa intaas waxaan raadinayaa caafimaad haddana wali waxaan sugayaa qaaditaan UNHCR waxaan ka codsanayaa si tartiiba aniga oo markaysa tixgelinaya xaaladaha iyo duruufaha jira oo adag awood inuu tixgelinayo haddana inay si tartiiba si degdeg ah ugu qaado ayaan jeclaan lahaa oon ku noqdo ciidayga hore joogaa caafimaad gurigii iyo wahii iyo neefafko laba ari anoo joog wahii waa lagnay anagaa lagnay booski waa quriyooysay abtaar baa joog fallekum si aad waxaan ka codsanayaa in shaqaalada dowladda oo la jirto in degdegsan laga qaado deyntii magaalada ka qaadanayna waa naloo diiday si uu dhaqsiyaha badan inta 2 maalmood ma sugi karo maanta bari ma sugi karo daba igu tahay iyaalka halaysadii u bariya insha Allah ma karinin waa rafadin jidna kuma jirno socodna ma haysano fadhina ma haysano Soomaali waa isku wada dan dawladda Kenya waa ku dhex noolaanay waa soo qaxnay qaran dumaanka waa ku wax baranay waa ka dhoofnay nabadgelyo aan ku haysanay dibkaayada hayana anagana wuuna hayaa raalli baan ku nahay annaga oo mahadsan dawladda u mahad celinayno hay'adda u mahad celinayno kasbaayna ku laabtaan rabaa 71 sano jira 29 intaan caafimaadka haysto aan taaganahay maalin aan meeshaas moogaanin uriyaan baa nagu jira wiilay baa nagu jirta qof aan waxba haysanin oo baska hata iska bixin karin baa nagu jira ilaa kun gaarayna dadka saa u dhibaataysan muddo 2 bilood ayaan taaganahay dawladda waxaa ka codsanayaa hay'adda UNHCR inay sida ugu dhasaabado loogu fududeyso qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa in badan oo ka mid ah muddooyinkii dambe waxay si iskooda isugu diiwaan galinayeen in dib loogu celiyo gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanadii ay ka soo jeedeen maalmaha ayaa waxaa xafiisyada hay'adda UNHCR ee xerooyinkan Dadaab laga dareemayay buudhaaf iyadoo arrintan ay ku saabsan tahay dadka oo doonaya in si degdeg ah loogu celiyo gudaha dalka Soomaaliya Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo raadiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed xeryaha qaxootiga ee Dadaab